habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah iyadoo sanad laga joogo doorashada madaxweynaha Soomaaliya telefishinka BBC Somali ayaa waraysi gaar ah la yeeshay Farmaajo waxa uu u sheegay in ay al-shabaab ka guuleysan doonaan inkastoo ay caqabado badan ay wajahayaan waa Olombikada xilliga qabobaha oo sanadkan ku soo aaday qabowgii ugu darnaa balse waxa jira calaamadaha inuu hagaagayo xiriirka u dhaxeeya labada Kuuriyo booliska Shiinaha oo adeegsanaya oo kiyaala aqoonsanaya wajiyada dadka iyo wararka farsamadii ugu dambeysay ayaynu caawa idinku haynaa barnaamijkeena tiknoolajiyada click madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa telefishinka BBC Somali u sheegay in ay al-shabaab ka guuleysan doonaan inkastoo caqabado badan ay wajahaysa dawladda sidoo kale waxa uu madaxweynaha sheegay in duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay soo bateen ayna sii badan doonaan wariyaha BBC Somali TV Ali Nuur Salaad ayaa ku waraystay magaalada Muqdisho anu waxaan dhaxlay saddex arrimood oo aad iyo aad u adag madaxweynihii ugu horreeyay isla saasoo kale intaasan qiyaas inuu dhaxlay waxay ahayd dalku colaad ku jira dalku dagaal ayuu ku jira muddo 10 sano ah dagaal ayuu ku jiray oo shabaab kula jiray qaraxyo badan iyo dhimasho badan iyo qax badan iyo abaaro badan oo ay koos gareysay ama aamurtay colaadaas tan labaad waxay ahayd dhaqaale xumo institutionska dhaqaalaha oo aan dhisnayn runtii dhaqaale la'aanna dal lama maamuli karo ma adag tahay tan saddexaadna systemkii dawladda oo aad u ahaa aad u jilcisan oo aan dhamaystirnayn oo hadda weli dhismihiisa ku jira saddexdaasna waa saddexda runtii dawladu ay ku kala duwan yihiin muddo 2 sano ayaad qabsatay inaad ku soo afjarayso colaadda al-shabaab sanad kamid ah waa uu tagay ilaa xagee gaartay aad isleedahay 2 sano qabsanna waa dhab waxaan aaminsanahay insha Allah duu ay biiraahdo 2 sano dalka in aan meel badan aan ka xoreyno shabaab muddo badan yaa dagaalkan socday dagaalkan runtii waxaan isleeyahay iyada naftigeeda saddex arrimood yaa asaas u ah in laga adkaado shabaab waxa weeye dawladdu horta inay tahay dawlad stable ah oo the system stable ah ee leedahay waxa siloon macnaheedu ay tahay wada shaqeyn dhexdeeda ah ee leedahay oo uusan jirin wax caqabado ah iyo wax khilaafaad ah maxaa yeelay marka dawladdu khilaafaad dhex yimaado waxa khasab ah inay ka faa'iideystaan oo inta la isku mashquulsan yahay ama dawladuhu isbedelayaan oo dawlad cusub imaanayso inay ka faa'iideystaan tan labaad waxay tahay oo looga hortagi karo looga adkaan karo kaliya ma qori caaradiisa waa in dawladda ay wada shaqeyn fiican leedahay shacabka Soomaaliyeed ma ku muuqda dib u dhac hiigsiga aad lahaydeen ee la dagaalanka al-shabaab ah runtii horta sanadka ugu horeeya inta badan waxa weeye isbedel iyo ishabeyn iyo isqorsheyn iyo badanta inta badan inaad ogaato waxaad haysato waxaad u baahan tahay iyo sidaas u diyaarin lahayd marka waxaan aaminsanahay qorshihii aan u baahnayn inaan isu diyaarino waa gabagabo waxaan aaminsanahay wixii hadda ka dambeeya hadduu eeba yiraahdo in ay bilaabanayso operationkii waxaan u baahannahay noo kaashanayna Amazon iyo beesha caalamka ciidamada caawiya dawladda Soomaaliya saaxiib la ah Mareykanka oo ciidamada intiisa badan caawin fiican siiya waxay fuliyaan duqeymo diyaarado aanay cidna wadin waxaa jirta in shacab badan la sheegay inay wax ka soo gaareen amaradaasna ama waxbaad ka ogtahay mararka qaarna adigaaba bixiyaba sidaad arrintaas ula socotaa duqeymaha waa dhab waa bateen waana sii badan doonaan maxaa yeelay waxaan rabnaa shabaab iyo argagixisadu inaan ka cirib tirno Soomaaliya muddo kooban oo aan qabsanay 2 sano gudaheeda marka haddee lagulama dagaali karo kaliya ciidanka dhulka kaliya waa inaan helno ciidan dagaalku siisana dee wuxuu leeyahay collateral leeyahay dhibaata yaa laga yaabaa inay daba socoto waxay xaqiijiyeen Mareykanka aad iyo aad ugu dadaalayaan
in ay taargetkoodu uu yahay kaleer macnaha diiradoodu inay tahay meel ku aadan meesha ay joogaan aysan ama ay yareeyaan ama aysan jiraynin dad shacabka ku dhibaatooda waraysiga madaxweyne farmaajo isaga oo dheer iyo oo arrimo kala duwan ka hadlaya waxaad ka heli kartaa bogga bbcsomali.com iyo weliba Facebook adigoo mobilkaaga ka galaya ciyaaraha olombikada xilliga qaboobaha si rasmi ah ayay uga bilowdeen Kuuriyada Koonfureed Kuuriyada Waqooyi waxay u soo dirsatay 22 ciyaaryahan laakiin waxa sidoo kale ku matalaya gabadha la dhalatay hogaamiyaha wadankaasi Kim Jong Un oo magaceeda oo qabsaday warbaahinta caalamka Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad ayaana ka waramaya warbixintan xafladda furitaanka Olympiga waa mid la isku arko laakiin wax yar ayaa tan oo kala qiimo la ah fadeexad daawooyinka kobciye jirka ayaa dhaliyay 168 ruushi inay ka qayb galaan ciyaaraha iyagoo si tacaalan dhexdhexaada laakiin tan waa mid taariikhi oo la sugayay koonfurta iyo waqooyiga Kuuriya ayaa wada socday iyadoo labada calanka u siday ay labada dal ka kala socdeen xiisadda u dhaxaysa oo si yaraanaysay oo ay muujiyeen midnimo la yaab leh laakiin joogitaanka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaashii Kim Yo Jong ayaa aad indhaha loogu hayay waa qofkii ugu horreeyay ee reerka ka taliya waqooyiga koonfurta ay yimaadaan tan iyo colaadii ka dhalatay dagaalkii Kuuriya tallaabo kasta oo ay qaado warbaahintu aad bay ula socdaan bari waxay la kulmi doontaa madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed toddobaad ka hor waxay ahayd mid aan suurtagal ahayn laakiin madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka ayaa uga digay Seoul Pyongyang tan abaalmarin uga dhigin sawirrada indhaha lagu hayo waxaa ka mid ahaa Mike Pence iyo gabadha ay walaalayihiin Kim Jong Un oo kuraasi dhowriyun u dhaxayso ciyaarahan waxaa lagu tilmaamay qaar aad taariikhi u ah iyagoon bilaabinba markana qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa kamid ah madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa saxeexay sharci cusub oo dhanka qarash garaynta ah kaas oo lagu soo afjaray shaqo joojin dawladeed oo koobnayd meel marinta aqalka wakiilada ayaa la daahiyay kadib markii sanadka uu dib u dhacay waqtigii kama dambaysta ahayd ee loo qabtay taas oo dalka u horseeday shaqo joojintii labaad ugu dambeynna waa la ansixiyay ciidamada Masar waxa ay sheegayaan inay bilaabeen howlgal ballaaran oo ka dhan ah ururada argagixisada dalkaasi afayeenka ciidamadan waxa uu sheegay in ay diiradda saarayaan gacanka Sinai Nile Delta iyo deegaanka dhanka galbeedka ah howlgalka waxa ka qayb galaya militariga iyo booliska wakaaladda wararka ee wadanka ee la yiraahdo Mina waxa ay sheegaysaa in booliska Masarna ay ku dhawaaqeen feejignaan sare oo dalka oo dhan ah madaxweyne Trump ayaa sheegtay in uu dhimay shaqo la'aanta madowga Mareykanka isaga oo sheegay in siyaasadiisa ay ka dhigan tahay in Mareykanka Afrika oo madow aysan marnaba helin waqti fiican inkastoo ay run tahay in tirada dadkaasi ay hoos u dhacday sanadka koowaad ee dawladdiisa bishii la soo dhaafay ay tiradaasi kor u kacday iyadoo ahayd 6.8 waxa ayna noqotay 7.7 haddaba saameyn intee la eg ayay leedahay siyaasadda aqalka cad ee Mareykanka Aisha Afrax ayaana faahfaahinaysa baskan rakaabka ah waa xarun shaqadoon waxa uu ku wareegaa xaafadaha ay ku badan yihiin dadka shaqada la ee Delaware shaqaalaha baska ayaa ka caawiya dadka shaqaraadiska ah sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen waraysiyada shaqo dhaqaalaha walaayadan Delaware ayaan kobcin waayahan iyadoo 10% qowmiyadda madow ee Mareykanka aysan shaqooyin haysanin Carol waa mas'uul ka tirsan waaxda shaqo abuurka waxa ayna sheegaysaa inaan la yareysan karin saameynta ay leedahay shaqo la'aanta shaqadu waxay u horseedaysaa reeraha xasilooni taasoo ayadana dhalinayso bulshooyin wada xasiloon Alan Peakham ayaa ku buuxinaya codsiyo shaqo xaruntan bulshada waxa uu bilaabi doonaa shaqo cusub oo ah wacyigelinta dhalinyarada balse shaqo la'aantii haysay waqti dheer ayaa saameyn weyn ku yeelatay isaga iyo reerkiisuba aad ayaan u faraxsanahay waxaan dareemayaa xasilooni xagga dhaqaalaha ah uma baahni inaan ka walwalo meesha uu qutulyoomkayga ka imaanayo madaxweyne Trump wuxuu sheegayaa inay siyaasadiisu ay yareynayso shaqo la'aanta ku baahsan qowmiyadda Mareykanka ee asalkoodu Afrikaanka yahay taasi maxay kula tahay
jooji sheegashada aad ku sheeganayso dadka kale waxqabadkooda sanad keliya ayaad xafiiska joogtay khabiiro baaritaan ku sameeyey shaqola'aanta haysata qowmiyadda madow ee maraykanka ayaa sheegay inay bilaabatay wakhtigii madaxweyne obama tani waxay ahayd hoos u dhac socday 2013 iyo 14 waa arrin soo jireen ah balse waxaa muhiim ah inaan diiradda saarno sababta ay u jirto farqi weyn oo u dhexeeya tirada dadka afrikaanka asalkoodu yahay ee ku nool maraykanka haatanna shaqola'aanta ah iyo dadka caddaanka ee maraykanka iyo sidii aan u xalin lahayn arrintaas haddii ay qorshayaasha madaxweyne trump ee ku saabsan dibudhiska dhaqaalaha maraykanka ay hirgalaan khabiirada dhaqaalaha ayaa sheegaya inay taasi u horseedi doonto hoos u dhac tirada dadka shaqada la ee u dhashay qowmiyadda madow ee maraykanka markana wararka ciyaaraha ugu waaweyn caawana waxaa ka mid ah naadiyada reer London ee Tottenham iyo Arsenal ayaa sabtiga isku arki doona Wembley Stadium. Tottenham ayaa martigelinaysa bari Arsenal ciyaar ay Tottenham u aragto tii ugu horeysay ee uu dheelo ciyaartooyga Lucas Moura. ciyaaraha kalena waxaa ka mid ah West Ham iyo Watford oo iska hor imaanaya iyo ciyaarta kale ee Everton ay martigelinayso oo Crystal Palace-na ay la ciyaarayso. maamulaha Chelsea Antonio Conte ayaa sheegay in uu si buuxda u aaminsan yahay kooxda balse waxa uu ku baaqay in kor loo qaado kadib markii natiijo xun ay kala kulmeen Watford ayaa isniintii 4-1 uga badisay kooxda maamule Conte taasi oo kordhisay cadaadiskii haystay 5 maalmood ka horna Bournemouth ayaa 3-0 ku tuntay Chelsea. Shiinaha wuxuu samaystay ookiyaale lagu garanayo wajiyada dadka dambiilayaasha ah. barnaamijkeena tiknoolajiyada ee Click ee toddobaadkan ayaad ku maqlaysaan. Axmed Xaaji ayaana ka waramaya. booliska Shiinaha waxa ay adeegsanayaan ookiyaalayaal casri ah oo aqoonsanaya wajiyada si loo garto dambiilayaasha. muraayadahan waxaa lagu shubay xogta dadka laga shakisan yahay taas oo askarta u fududaynaysa inay meel dad badan joogaan ay ka dhex eegaan kuwaas ayna ka dhex gartaan balse waxaa lagu eedeynayaa in dawladda Shiinaha ay awood dheeraad ah arrintaasi ay u yeelanayso taasoo noqonaysa dawladda ugu dabagalka badan dunida isbuucan shirkadaha iyo bangiyada Mareykanka iyo Britain ee bixiya kaararka lagu adeegto waxay macaamiishooda ka mamnuuceen iibsashada Bitcoin lacagtan teknoolojiyadda ayaa hoos u sii dhacaysa ilaa $6,000 ka hor inta aysan soo kaban oo aysan gaarin $8,000 waa meeshii ugu hooseysay ee ay gaarto tan iyo bishii December oo ay ahayd xilligaasi $20,000 jaamacadda koonfurta California waxay waxyaabo kala duwan u sameynaysaa dadkii ka badbaaday Holocaust oo sheekooyinkooda u bedelay khibrad kororsi iftiikan waxa uu dadka la wareysanaya ka qabanaya dhinac kasta iyadoo qalabka codka garashada iyo software-ka barashada ay isu geynayaan kana dhigayaan isdhexgal run ah miyaysan noqonaynin olombikada qabowga hagaag waa sida la filayo in Pyongyang u ekaato waa xaqiiqo waana sida ay kooxda Mareykanka u tababaranayeen sanadka badan si maskaxiyan ah ayay ugu diyaar garoobayaan tartanka dhabta ah haddii taasi aysan ku filnayn sameecadahan casriga ah ee la shaqeeya maskaxda waxay siinayaan awood iyo inay ciyaaraha ay u adkaystaan miiska biladaha waa meesha ugu dambaysa ee lagu ogaanayo awoodda tiknoolajiyaddan ugu dambeyntiina maalmihii u dambeeyay magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxay hooy u noqotay bandhiga gawaarida bandhigaasi ma ahan oo kaliya gawaaridii hore waa kii 43aad marka hore kumanaan dadka aadka u xiiseeya gawaarida ayaana fursad u helay inay arkaan boqolaal gaari oo qaarkood ay yihiin kuwa casri ah iyo kuwii u horeeyay oo si casri ah u samaysan warkan iyo kuwii ugu dambeeyay waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena bbcsomali.com intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa inta aan kulmi doono toddobaadka dambe isniinta waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad galyo